بسم الله الرحمن الرحيم أرضي قيبتا كحكتا مقال كان waxaan ku fiirinaynaa hadii ilaahay idmo layliga qaybtiisi labaad waxaad waraaqahaaga ka tagaysaa qaybta afraad ee ay ku qoran tahay hees hawleedyada hees hawleed hadii lagu weydiiyo macnaheedu waxa weeye in hawsha qofkaasi uu hayo ee la isku ilowsiyo si aadan hawsha culayskeeda u dareemin baa waxa la qaadaa hees hawleeda hees hawleedu marka way kala duwan tahay oo wax walba oo marka la hayo dadku waxay u adeegsadaan hees hawleed u gaar ah si aysan culayska hawshaas aysan u dareemin halkan marka waxa ku qoran qaybo hees hawleedyada ah marka waxa ugu horeeya qaybta falaarta koowaad ku qorba lagu yiri hees hawleedyadan meesiga iska leh ardaygu marka isagoo akhrinaya baa waxa laga rabaa inuu marka doorto aqoonsado meesiga hees hawleedan iska leh tusaale ahaan qaybta koowaad oo kale waxa la yiri allow laba kadin oo ku weena oo la kala rogay koorhaay taas marka waxa ka dhigaysaa geela tan kale waxay ka bilaabmaysaa bacadlow baalin naageed barma kaaga sheega taasna waa awrka bacadlaha ah ee la rarto hadduu ximan tago oo xarfada cuno xoorka geeliyo xayridaadlow taasna waa looda waxa ku wixiga gaabeeyay geeldhaane taasna maxay noqonaysaa dameeraha ayaa loogu heesaa heestaas waxa iska leh dameeraha qoobab dhagaxay iyadana mid kamid ah aragtid qoobab dhagax ay ka bilaabato iyaduna waxa weeye dameeraha iska leh heesaha dameeruhu way badan yihiin waxa ku soo haray lambarka shanaad maqalay warlay ma lagu waramay tan waxa iska leh maqasha xaraha yararka marka geediga ay yihiin dadku oo la guurayo baa iska leh